وكنها أديلنا وعيلنا غنايا أوكي ننها أدب وأوكتاي saaxiibtinimadu weligeed basad ayay ahayd oo ay isku dhooraan dadka ay markaasi ka dhaxayso baryahaasi kor ayay u sii socotaa dhacdooyinka ka dhex dhaca garmaqalkan ayaana maanta lagu dhageysanayaa dil uu geystay dable xoogga cabdulqaadir xaaji yuusuf ilkacase oo madaxa xabad kaga dhuftay saaxiibkiis kala tirsanaa ururka 222aad guutada 22aad ee booliis militara marxuum ekis dable xoogga ismaaciil xasan ibraahim macuusley dilkan oo ka dhashay muran ka bilowday sigaar ayaa ka dhacay xerada dhista ee degmada Daynile 17 bishii labaad ee sanadkan waana kan xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida oo garsoorka u sharaxay sida faldambiyeedkan uu dhacay mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh taariikhdu markii ay ahayd 17 bisha labaad 2025 ayaa wax kiis dil ah oo ka dhacay degmada Daynile oo ay deganaayeen xero ku tiil degmadaas oo ay shaqo ka lahaayeen eedeysanaha maanta maxkamadda hortaagan iyo marxuumka oo ay halka shaqo wadaag ku ahaayeen kiiskan asal ahaan wuxuu ka bilowday balwad eedeysanuhu ciidanka markuu qadeeyay askari ka istaagay goobta oo tubada faraxalka gaaray ayuu ka daba tagay waxa uu weydiistay sigaar askarigaas wuxuu ku yiri aniga waxaan hayaa hal xabo sigaar ah saddex askari ayaana ku cabi rabnaa sidaas darteed magaalada ka soo gada adig askariga iyo marxuumka ayaa meel wada degnaa meeshii marxuumku joogay ay wada degnaayeen ayuu askariga ku soo laabtay eedeysane cabdulqaadir xaaji yuusuf uu soo dabagal meeshii ugu daba yimaad meesha koolba maaha meel ay jiiftaan oo ay dhisteen oo jiingada waday labadaas askari halkii markuu tagay marxuumku wuxuu ku hadlayay moobel sida warbixinta ku helna qoyskiisu la hadlayay eedeysanuhuna uu ku dul buuqay marxuumku marka wuxuu yiri hadalkii ugu dambeeyay uu dhahay wuxuu ahaa askari lagu magacaabo Cabdullaahi Gacal ayuu wuxuu ku leeyahay aniga sigaar ma rabe waxa ay keentaan biyo wasaqad ah waxay ahayd waqti duhradii ah ay ahayd oo isku diyaarinayay salaada duhur ninkaana iga korwad asigoo markaa dhibsanaya buuqis iga korwad markuu yiri eedeysanaha jawaabtiisu waxay noqotay in marxuum Ismaaciil Xasan Ibraahim qoray madaxa ugu qabto oo joodarigiis ku dul fadhiyo askari lagu magacaabo Cabdullaahi Gacal oo ay marxuumka isla degnaayeen jiinga daayir ayaa wuxuu ku leeyahay ka diji qoriga askari qoriga in amaanka furan yahay xabadani jirta ayuu arkay ka diji askari qoriga ku qabanin kama dijine xabad ayuu madaxa ugu qabtay ninkaas horta nin cadowgayga ma ahayn nin walaalkayga ahaa isku meel aan ku shaqeynay isku ceeshaan ahayn isku shaqaan ahayn qof kale ani hadda oo cadow ah ku tilmaamay miyeen abadana anako farciyaarayna iga fakatay kasna ma ahayn kamana ahayd ninkaas nin cadow ii ahaa oo ani hadda kas u dilay maaha say wax u dhaceen horta ani asii isku meel isku group isla socod meel walba aday waa isla jirnay waa isla qadaynay subaxdii meesha isku baashaalayna qada ka bacdi waa baxnay koolbaha tagnay meesha wax yar ku baashaalnay saa u kaftamayna farciyaar oo aan wadnay qori amaankiisa furan yahay marka dhabta ii saarnaa qoriga amaanka ii furnaa dhabta ii saarnaa soo qabsay gashay abadiina saasa iga dhacday walaalkii meesha aan tagnay koolba oo harada dhaxdeeda ku yaal waay arinta sigaarka maxay sigaarka marora bilaabi waaba ani gacala isla wada abni maxay ahayd habad sigaar oo ani gacal isla abni waaye meeshana sigaar ma yaalin kaftan oo marka horeba kaftami jirnay oo galgaceel ani asiis jecleen oo kii hooyaday aabay dhaleen waa ka jeclaa ani wax oo xumaatan dhax yaalina ilaahay abuur ma lahayn marka xabad dhacayso oo dhihiisa waa ka istaagay waxaas dhihiisa doodeeda dhexmaraysa xawsha xawa doodan dhaxmartay waa la isfoorjeynaa waxaa la isku foorjeynaa inay wax ma gadanaysa iyo filimkaas la isku foorjeynaa waxa laga wada gadanaysa cunju qaataa macna waxa la gadanaa maxay waxa la gadanaa sigaar waa sigaarkan asima ku murmayna aniga gacala ku murmayna adiga maxaa ka xalaad marka oo baxa u tiri ani marka istaagay qoriga amaanki waa furnaa dhabteeda ii saarnaa istaagtaan dhaay hadalkan ka xanaaqay inaa shukur ku dhacay farteeda
sidii san xabadda ku qabsatay استاج مفرجدا كحنا كحنا غادي ana foorjada ma ka xanaaqeen حكى عنا كابيس وكان تجا مش عقودا ana meesha inaa iskaga tago anaa dan kale lahaa meesha oo micnaha dhar kale meesha igu wirnaa dharka ka soo qaada qoraxda xilli salaadna waa la joogay soo weyse qaataa rabay saa loo ka kaftamay kacdaa maagay qorigaa soo qabsaday cabadiina ninka walaalkii ku dhacday maxaa marka aad saaxiibka aad xabad ku dhacday maxaa u cararto oo fakata ma uu gargaar waa ka nahay hadina xasaleena haddii la naha wixii la naqanayaa okay nin nahay adigu waa ogtahay askar shaqo wadaag ay ahaayeen marxuumkii eedeysanaha goobjoogna uu ahaa dhacdadan ayaa fadhigan looga dhageystay sida ay wax u dhaceen maalintaasi gudoomiye marka subax markii la gaaraa tali koox quraac loo kiciyay aniga quraacda waa diiday gudoomiye quraacda markaa diiday marxuumkii waa hortayda uu kacay gudoomiye aniga 4 saac amal meel 5 saac hurdo ka kacay 5 saac markaa gudoomiye hurdada ka kacay marxuumka u tagay waxaa ku dhaaniyo quraacda waa macuna aniga aniyo ina qadiina u baahanaa aniyo cabitaaniya inta u raadinayna ina kaxee wasraacna gudoomiye ninkaan oo meel kolba wadii ka saarna u tagnay kolba wadii ninkaan markaa meesha ugu tagnay meeshii ku hadalnay ne warkiga dhaafaa meeshaan adeeg ka doonayna marxuumka mi raacayaan dhaane ha ugu dhaay wasraacna adeegeeniya soo qaadan gudoomiye adeeg markaa soo qaadana waa soo wada raacnay marxuumka asaa baraf iyo cabitaani waxba noo soo iibiye wixii markuu noo soo iibiye aniga lacagahay wax kala soo iibiye gudoomiye wixii markaa soo iibiye soo raacna gudoomiye dhinaca tubada igaga laaxay marxuumka garaafo cabitaani waxa ku qasano noo keen meesha ku wada qadiine meesha markaa ku wada qadiine gudoomiye ninkaan waa noo meesha ku wada qadiine kulligeen meesha markaa ku qadiine marxuumka markuu wuxuu aaday dhinacii meesha aan ka soo kici oo isla jiifi jirna koolbi oo soo aaday gudoomiye meesha koolbi markuu soo aaday gudoomiye meesha ugu maad wuxuu ugu dhahnay gacalow markaa meesha soo aaday gudoomiye ninkaan iga dab yimid ani uma jeedi markaa waa iska sii socdaa markaa gudii gala marxuumka u nimid marxuumka wuxuu yiri telefoon ku hadlay xaaskiisu la hadlay marxuumka wuxuu yiri gacalow ninkaan maxay u keentay dhaa ninka ku keenada ninkaan gadaashiidu taagan markaa fiiri war adiga tubadaaba joogtay goorma imaadaan ninkaan gudoomiye bas meesha shaak ku galna gudoomiye wuxuu yiri marka marxuumka adigan iga baxo yiri kan ha iga baxo gacalo weysan noo keen oo dhaay waa weysaysanayna waa dukanayna haya dhaa mar gudoomiye hay markaa dhaa iridi markaa istaagan ninkaan iridi uu taagan marka wuxuu yiri marka adiga gudoomiye war isdhahan warka marka isdhahay gudoomiye ninkaan marka xabadii ku riday qoriga marka amaanka u furnaa ninkaan astaghfirullah gudoomiye ninkaan amaanka u furnaa qoriga amaanka marka u furiyo ninkaan qoriga ku aadiye qoriga marka fiiri inay xabad jirta ar gudoomiye waxa dhaanay ka deji qoriga xabada jirta wax lagu ciyaar ma ahan aadaha gudoomiye xabada waa dhacday waa qayli aniga marka qayli gudoomiye tali koox iyo dhinacayga soo aadeen dhinacayga markay soo aadeen ninkaan qoriga ugu soo tuur gudoomiye qoriga hadda ugu soo tuur wuu cararay markuu cararay marka aniga marka waxa sameeyay markuu cararay oo tali koox iyo ciidanka dhan iyo wixii dhan ay yimid gudoomiye wargacalo maxaa dhacay oo qaylna ninka cararayo naga fakanaa dhaanuu dilay xabad dhicaysa ninkaan ku dhacday marxuumka bas ilaa amarkiis gudoomiye waa laga wada daba cararay waa ka daba wada cararana marka ka daba cararna niman booliska noo yimideen oo tali laamiga taagnaa wixii dhan ba ilaahay iswaafajiyay gudoomiye booliska dhan war xeeta cararaysiin jino gacalo maxay u cararaysa ciidanka booliiskan dheer warkaas aan dilaa ka daba cararayna booliiska marka baaburka nagu soo qaadeen waa ka daba cararnay sidoo ku soo qaban gudoomiye asaga ciidankiina ka tirsanaa isku unug maatiin isku xatir ninka isku xana gudoomiye marxuumka dhintana isku kooxana waxay maada gacalo ordaayo qoriga la ordaayo wuxuu dhahay Ismaaciil waa dhintay ilka casaadil ilka cas waa fakaday xada waa fakaday tali qoriga ka qaatay waa raacay laamiga markaan tagay dib taqaana gaari oo boolis oo xilis barbar ka soo meesha laamiga dhexsiilay gaarigan qaadana waa ku raacna dadkii intuu ka baxay asas yordaan luuqada daba tagnay waa soo qabanay gudahan keenay gudahan ku jeebaynay askariga qolka ku jira Ismaaciil Allah u naxariistay xilis dhaawacaan u tagay waa soo qaadnay isbitaal digfir albaabkiisa markaan keenay nafta ka baxday asin marka ma weydiisay marka maxaa u dhashay aniga su'aal ma weydiin askariga oo emergency-ga soo qaaday xilis dhaawacay waa jeebay askartii meesha joogtay iyo booliska nala socdaan waxaan askariga waa eedeysane oo maxbuus uga fakan anakoo kolbaa wada joogno ayaa baaloota dhacday baalootada dhankay ka dhacday taasaan wada fiirinay ninkaan marxuumka kan dili rabo oo sii fakana bilaa qorilaan soo oo xerada kasii cararayo ninkaan gaclay oo goobta la sugnaay oo kasoo daba baxay war hebel waa dhintay dhaha aa ka daba yimid ninkii sidaa ugu daba baxnay
baabuurka filarteed oo ku bursana baa iga beersan sidaa ugu soo noqday sidaa ninkan lagu soo qabtay marka habada bug dhahay oo laamigana marka minaa jagboontahay marka oo taleko marka waxa dhahay tale minaa oo minaa jagboontii ma bamba lagu tuuray hadalkaas marka dhahay mas oo ninka oo la joogay marxuumka la joogay asoo qeelinay binaan ku arkay marka ma usleey la dilay asoo le markaas ninkaasna meena waa orday marka ninka hadalkan inaa dilay ilaa ninkan burka ka dilay marka waa ka daba baahanay ninkaas ku soo goban baaraha kiiskan ee hoggaanka sahanka iyo wardoonka ciidanka xoogga dalka ayaa garsoorka ku biiriyey baaristii uu ku sameeyey galkan natiijadii ka soo baxday ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida dhamme xasan siyaad maxamed tarsan ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha ay ku xukunto dil toogasho oo ah qisaasta marxuumka mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh eedeysane dable xoogga cabdiqaadir xaaji yuusuf aadan waxaa la soo xiray taariikhdu markii ay ahayd 17 bisha 2025 waxaana loo soo xiray in uu geystay fal dil ah una geystay saaxiibkiis askari kala tirsanaa koox shaqo wadaag ay ahaayeen